madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Faransiiska ku tilmaamay dambiile kibirsan oo aan ka garaabayn dambiyadii uu geystay isagoo ay hortiisa yaaleen kumentiyo ay ku qoran yihiin xasuuqii uu Faransiisku ka geystay dalka Algeria iyadoo dalka Algeria laga xusayo maalinta shuhadada Algeria. madaxweyne Erdogan ayaa munaasabadaas awgeed khadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Algeria. madaxweyne Erdogan oo arrintan ka hadlaya waxa uu yiri sidan: dalka Algeria waxa ka socota xuska maalinta shuhadada. dadka reer Algeria ayaa xusaya dambiyadii iyo xasuuqii uu gumaystihii Faransiisku sanado badan ka geysanayay dhulka Algeria. arrintan ayaa Algeria laga xusaa laga soo bilaabo bisha February ilaa dhammaadka bishan Abriil sanad walba. xusku waxa uu sanadkan ku soo beegmayaa iyadoo ay sii kordhayaan dalabaadka caanka ah, kuwa sharciga ah, xuquuqul insaanka iyo kuwa siyaasadeed ee ku aadan in xasuuq loo aqoonsado wixii uu Faransiisku ka sameeyay Algeria oo uu raaligelin iyo magdhow ka bixiyo dambiyadii dhiigga badan ku daatay ee uu Faransiisku ka geystay gaar ahaan Algeria intii u dhaxaysay 1880 ilaa 1881. gaboodfalladii Faransiisku ka geystay Algeria waa wax caqligu diidayo. gumaystihii Faransiisku waxa uu ahaa mid naxariis daran oo wax walba u baabi'inaya dantiisa, wuxuuna caqabad ku ahaa horumarka shacabka Algeria in ka badan 130 sano. waan cambaaraynaynaa kuwa falalkaas sameeyey ee haddana sheeganaya inay ilbaxnimo leeyihiin iyagoo aan ka garaabayn wixii ay Algeria iyo meelo kale ka geysteen. milatariga Faransiisku sida taariikhdu xusayso wuxuu si arxan darro uga hor yimid kumanaan Algerian oo si nabad ah mudaharaad u dhigayay dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka iyaga oo dalbanayay madax bannaani. taariikhdu markay ahayd May 8, 1945 ciidamadii gumaysiga Faransiiska ayaa maalmo gudahood ku dilay 45,000 oo qof oo dalbanayay madax bannaani. arrintaasina waxay ahayd dambi cusub oo galay rikoodhka Faransiiska ee dhiigdaadinta. Faransiiska waxaan ku tilmaamaynaa inuu yahay dambiile kibirsan oo diidan inuu ka garaabo gaboodfalladii iyo xasuuqyadii uu geystay. annagu waan wadaynaa tallaabooyinkaan uga soo horjeedno wixii ay Faransa geysatay ilaa inta ay ka qiranayso, ka garaabayso oo ay magdhow ka bixinayso. intaa kaliya kuma eka dambiyadii gumaystaha Faransiisku ka geystay Algeria siday taariikhdu qirayso. in ka badan 1 milyan oo Algerian ayaa ku dhintay kacdoonkii Algeria ee Faransiiska looga soo horjeeday. shacabka Algeria ee aan walaalaha nahay ee goobnimo u dagaalanka caanka ku ah waan la dareemaynaa dhibka ay soo mareen ee uu gumaystuhu geystay, waana uga tacsiyeenaynaa. madaxweynaha Algeria iyo guddoonka sharci dejinta Algeria khadka taleefanka ayaan kula xiriiray anigoo fariin ka sida ummadda Turkiga inaan ku garab taagannahay walaalaha Algeria siday ugu taagan yihiin u doodidda xaqa malaayiintii shahiiday reer Algeria. waxaanu ku boorinay reer Algeria inay hawsha sii wadaan ee aanay ka daalin ilaa inta laga aqoonsanayo dhiigga malaayiinta Algeria ee xaqdarrada lagu laayay. Algeria sababta loogu naanayso dalkii milyanka shahiid wax ciyaara ma aha, waana sababta ilaa maanta Algeria ay hormuudka ugu tahay ummadaha aan ilaawin godobtooda. meel kastoo dunida iska caabinta iyo xaquudirinimadu way soconaysaa ilaa inta laga garaabayo. waxyaabaha aan marar badan isku diidno midowga Yurub ayaa ah inuu Turkigu faldambiyeed u aqoonsan yahay waxyaabihii gumaystaha Yurub wadamada qaarkood ka geysteen. waxaanuna u sheegnay in aanu Turkigu marnaba ka talaasunayn qodobkaas ilaa inta ay qiranayaan dambiyada ay geysteen. gumaystayaasha qaarkood ayaa ka garaabay falalkii ay geysteen xilligii gumaystaha sida Jarmalka oo kale. Ingiriiska ayaa isna Indiya u celiyay dahab uu ka dhacay xilligii gumaysiga. sidaas ayaa loo baahan yahay
oo ah midda lagu ilaawi karo boogihii gumaystaha. dhinaca kalena madaxweyne Erdogan ayaa toddobaadkan sheegay in Turkigu ku faa'iiday in loo diido inuu ku biiro midowga Yurub, isagoo si jees ah ula hadlay madaxda midowga Yurub ayuu yidhi yaa faa'iiday yaase khasaaray maanta marka taariikhda dib loo eego. madaxweyne Erdogan oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi sidan: waxaa jiray waqti Turkigu uu aad ugu hamin jiray inuu xubin ka noqdo midowga Yurub. guul ayayna nooga dhignayd waagaas ku biirida midowga Yurub, laakiinse maanta maya. xubnaha midowga Yurub ayaa waqtigaas sabab la'aan Turkiga uga hor istaagay inuu ku biiro midowga Yurub. xitaa shuruudaha ay nagu xireen waxay ahaayeen diidmo qayaxan. laakiinse nasiib wanaag, intaa wixii ka dambeeyay Turkigu wuu iska ilaabay hamigiisii ka mid noqoshada midowga Yurub, danihiisa ayuuna raacday. intaa wixii ka dambeeyay Turkigu wuxuu bilaabay xoojinta awooddiisa diblomaasiyadeed, ciidan, iyo inuu dalku soo saaro agabka militari ee dunida ugu casrisan. maanta Turkigu isaga ayaa ku filaaday ammaankiisa iyo kan xulafadiisa qaarkood, laakiinse maanta midowga Yurub iyagii ayaa ammaankooda ku filaan waayay. waana sababta in badan oo askarteena ka mid ah ay dibadda ugu maqan yihiin. waxaan arrimahan u xusayaa maanta ayay ku beegan tahay markii aanu faylkii ugu horreeyay u gudbinay midowga Yurub. maanta iyo maalintaas farqiga u dhaxeeya in la xuso way habboon tahay. bini'aadanka way dhacdaa inuu fogeeyo cid uu isleeyahay maalintaas waxba ugama baahnid. markaas ayay dhacdaa ciddii uu shalay fogeynayay inuu maalin kale garab uga baahdo, taasoo laba midkood noqota: ciddii shalay la fogeynayay inay aargoosato, iyo in aanay ku dayan ee u wanaag fasho ciddii shalay xumaynaysay. Turkiguna wuxuu ka dhigan yahay inaanu aargoosan oo uu mas'uuliyad muujiyay. domain name waa magac ama sumad gaar ah oo cid gaar ah lagu yaqaano. waxaa jira domainno badan oo kala duwan. muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa farqiyada kala duwan ee u dhaxeeya iyo nooca kugu habboon. midka koobaad waa .com, waana domainka ugu caansan ee caalamka. waxaa adeegsada shirkadaha ganacsi ee caalamiga ah. haddii aad u baahan tahay in shirkadaadu ay samayso sumcad ballaaran oo caalami ah, doorashada ugu wanaagsan waa .com. .org inta badan waxaa isticmaala hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn ama NGOs-ka, ururada bulshada iyo hay'adaha samafalka. haddii aad leedahay hay'ad samafal ama ururo bulsho, waxaa kugu habboon .org. .net waxaa isticmaala shirkadaha bixiya adeegyada tiknoolajiyadda iyo kuwa internetka iyo networkska bixiya. haddii shirkadaadu ay bixiso adeegyada networking-ka ama IT solutionska, doorashadaada saxda ah waa .net. .so waa domainka rasmiga ah ee Soomaaliya. haddii aad leedahay ganacsi maxalli ah oo ku salaysan Soomaaliya, .so waa xulashadaada ugu habboon. haddii aad doonayso in magac ama sumad ku gaar ah aad ka samaysid internetka, waxaan ku haynaa dhammaan noocyada kala duwan ee domain nameska. si gaar ah .so wuxuu ku jiraa qiimo dhimis 20% ah inta ka dhiman Ramadaanka ilaa iyo maalmaha ciidda. ku raaxayso qiimo dhimistan cajiibka.